kuwaan waa meelaha ugu cabsida badan ee loo dalxiis tago daafaha adduunka booqo haddaad ku dhacdidahe waana qaybtii labaad aan ka sameynay goobahan. assalaamu calaykum asxaabteena, ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta, muuqaal aan rajeynayo inaad ka heli doontid. haddaba aan u guda galno. inta aadan ku fikirin inaad ku dul socotid xarigan dhuuban, waxaaba laga yaabaa inaad cabsi darteed aad u barfowdo. tani waa mid ka mid ah xeebaha ugu nidaam darada badan adduunka oo waxaaba ku xigta xeebta Maho Airport, taas oo diyaaraduhu ugu soo dhowaadaan markay deganayaan. bal ka waran haddii halkan lagaa tuuro aabbaay, balse ha cabsan, waxaa ku dul dhacaysa shabaq. dadka qaar waxay u baahan yihiin in la tuuro, qaarka kalena iyagaaba istuurayaba. Shut Off Canyon oo ku taala dalka New Zealand waa goob istuuris oo jooggeedu aad u sareeyo. waxaad ka helisaa laadid caadi ah oo lagu tuurayo. dabcan waan ogahay waxaad ku fikirayso ah in goobtan ay ku baashaalaan carruurta keliya, balse waad khaldan tahay ee xitaa dadka waaweyn ayaa isku soo taraarixiya kuna baashaala. cajaa'ib fiiqo. Houston Sky Pool waa baraago dabaal oo ku yaala meelaha ugu sareeya dhismayaasha dhaadheer oo haddaad tilaabooyin sii qaato qofka hoos jooga waxaad ula muuqataa sida quraanjada oo kale. buundadan ka samaysan muraayadaha ay ku taala dalka China waa mid ka mid ah buundooyinka ugu dhaadheer dunida, iyadoo dhererkeedu la egyahay 1400 feet. alle goobtan biyo istiraarxiska ahi waa goob aad iyo aad u qurux badan, adigoo weliba hoos maraya tuubo, balse ay ku hareersan yihiin libaax badeedyo baahan. abow magaceedu waa Insanity oo ku taala magaalada Las Vegas. waa meel sare oo weliba lagu wareejinayo. alla muxuu cawaadku ka dhammaan lahaa. allah hal talo aan ku siiyo, qof kasta oo xiiseynaya meeshaan hoos marnaba ha fiirin, haddii kale waa lagu yaabaa. waxaana wax kasta ka daran xawaaraha ku soconayo. aabbaay, keliya qayladaada waxaa laga maqlayaa dhulka hoostiisa. cajaa'ib sheekhow. bal ka waran awoodda codka biyaha ku tuuraya. ani halkan waaba ka helayba. keliya waxaa tahay suge biyuhu tuuraan. Nicaragua ma ahan meel uu fadhiyo buuro baraf ah, balse waxay caan ku tahay hal wax oo argagax leh. waana meel ay ku diyaarsan tahay volkaanada nooceeda diyaarka ahi, afka qalaadna lagu yiraahdo active volcanoes, iyadoona aad raacisay halkaas isku soo taraarixinaysid adigoo ku soconaya xawaare dhan 50 meel saacadiiba. meeshaan waa meel lagu ogaanayo haddaad geesi tahay ama fuli tahay, waxayna ku taalaa magaalada Chicago, waana diyaanada 94, iyadoona ay tahay meeshu meel janjeerta. waaba argagax caadi ah, ugowna waxay dhulka ka sareysaa masaafo dhan 1030 feet. Swiss Alps waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan adduunka, adigoo weliba daawanaya bilicda muuqaalada sare. fuulitaanka labada cirif ee buurta Donald Kugel ee dhacda dalka Australia, iyadoona janjarada laga fuuliyo lagu magac daray Stairway to Heaven, jaranjarada lagu gaarayo jannada. adiga iyo dhulka waxaa idiin dhexaysa masaafo dhan 2296 feet. ugowna waxaa ka hooseeya tog. Adam Lookout Wing waxaad arkaysaa meelo aad u fogfog inta ishaadu qaban karto, laakiin hal mid weynaadan iloobin oo ah inaad teleefankaaga jeebka aad gashitid, sababtoo ah waad iska lumin kartaa. allah meeshaan inaba caadi ma ahan oo waxay ku taallaa dalka China, iyadoo dadku u sii marayaan dhankaas iyo buurta. waxayna dhacdaa buurta Taihang, waxaana dhererkeedu yahay 300 feet. ma ku dhiiran lahayd inaad ku dul socoto buundadan ahna mid ka mid ah buundooyinka ugu dhaadheer ee la mamnuucay in lagu socdo, laga yaabee in aad baqal khashidba. goob kaloo cajiiba Drop of Doom waxaa sii raaca koox dad ah kuwaas oo jawi cajiiba sii geliya. allah waana mid u sareeya xawaaraha ku soconayo. wax kale iga dheh, wadna xanuun hadduu kugu soo boodo aday kugu taalaa. in la isku tuuro oo lagu qubso biyaha badda Mediterranean waa mid aad u cajiib u ah, waxaana laga soo tuuriyaa meel biyaha u jirta masaafo aad u sareysa. inta aad hawada ku soo jirtana qayladaada waa mid aad u sareysa. ninkan iyo xaaskiisa ayaa halkan ku sameynaya jazz. inaba caadi ma ahan, iyagoona ku sameynaya meel muraayado ka samaysan, halka gabdhahaana ay ku jaasayaanba. Skydeck Chicago, keliya garaaca wadnahaaga ayaa noqonaya mid aad u sareeya, si ka badan sida caadiga ahi. iyadoo hoos loo sii socdo ayaa biyo la sii marayaaba. laakiin kuwa Japan ay diving coaster ayaa kuwa aad u fiican, weliba waxaa kuu sii dheer qubays. allah keliya quraarada yar ayaa idiin dhexaysa adiga dhulka, si aad ugu raaxaysato jawiga diiran ee xagaaga ee Dubai, adigoo ka daawanaya Palms Observation Deck oo ah goobo laga daawado bannaanka. bal adigoo halkaa ma mari kartaa, welibana ay u sii dheer yihiin biyo dhacaan. aleeka alle aniga ahaan waxaase kaaga daran haddii ay lugtu ku baxdo. faatixada naga filo walaalka. allah haddii lagu raacsiiyo laashkan waxaaba macquula inaad weyd ilbiriqsiyo aad neebsato. qaabka leexleexshadiisa waa mid inaban caadihiin, marba dhinac ayaad ku dhacaysaaba. xarfaan nasiib ayaad leedahay haddaad biyaha ku dhicin. aabbaay, xarfaan halkaana wejigiisii ayaa isbedeli. cabsibsi waaye wallaahi.
tan aday kula tahay mid khatar badan saaxiib. Ninkan ayaa halkan ku baakimay diyaaradiisa khaaska ah wuxuuna ku soo dul socdayba garabka diyaaradda isagoo weliba xarakeynaya si uu u raaxaysto muuqaalada sare. goobta lagu magacaabo Keretia Ubud Resort waa barkado dabaal oo kala go'an adoo u sii gudbiya midba ku xigta waana la kabi kala sareeya. haddaad waagi yareed aad ka cabsan jirtay inaad hoos ka soo taraaraxiso malaha cabsidaas hadda kuuma jirto oo inta kor lagu jiido ayaa hal mar lagu soo deenaya ababay xarfan halkan ka waran ababay kor iyo hoos ayaad u dhaxaynaysaa armaaba halkan ku wareertaa cajaa'ib sheekhow. ma ku dhiiran lahayd inaad ku dabaalato London Skyboard laakiin waa marka kaliya aad dareemi karto inaad tahay Superman kaasoo ku duulaya dhexbartanka dhismahan. aaditaanka kor waa mid ka yara fudud u soo daadaga haddaba markaad leedahay waa meel aan lagu wareereyn waa iska sidaan oo kale cajaa'ib sheekhow. ma ku dhiiran lahayd inaad halkan aad ku raaxaysato aadna waqti ku qaadato una kaa hoosiyo biyo dhacaan allah waa jawi degan laakiin cabsi ayaa u dheer. waa mid ka mid ah wiifowga ama leexada weyn adduunka garoonka Mosmo Bida oo qaada dad gaaraya 85,000 oo taageerayaal ayaa korkiisa laga soo tuuraya. haddaba cabaadka iyo qeylada ka baxaya waxa kaliya maqalaya kuraasta banaan marka waa adigay kuraasta allah. inaad cagaha ku dulbaaxatid keymaha dalka Cambodia adigoo ku raaxaysanay jawiga sare ee keymahan waa mid aan waxba laga qaban karin runtii. bood buuq ma jire haddii kugu soo dhacdo waa tan oo kale ku dul bood oo jawi degan ayaad galaysaa oo dadkan oo dhan ayaa halkan u yimid inay sameeyaan boodkan. meeshan cajiibka ah ee lagu magacaabo Amalfi Coastline ee ku taala dalka Talyaaniga ayaad waxaad ku raaxaysanaysaa jawiga iyo muuqaalada sare weliba adigoo dabaalanaya allah. haddii Isaac Newton una baray in wax kastoo wada gala inay khasab tahay inuu hoos u soo daadego haddaba ka waran haddii mar kor lagu geeyo haddana hoos lagu keeno xawaarahan uu dheer yahay xarfan halkan ka waran ababay kor iyo hoos ayaad u dhaxaynaysaa malaha afka iskumaada qabateen cabaadka ayaa ka dhammaan lahaa. maqaayad ku dhex taala biyaha dhexdeeda jawigeedu saxan yahay dabcan meeshan oo kale waa meel cajiiba laakiin waxaan rajeynayaa in mawjooduhu aysan kor u kicinin. haddaba haddaadan ka baqanin meelaha dhaadheer ayba tahay waxaad jeceshahayba haddaba meelahan waa meelaha kugu habboon ayna tahay inaad booqato saaxiib.